habeenkii koowaad labaad iyo saddexaad ee dhismaha waardiyaha aan ka aha aan joogay wax waliba caadi u muuqdeen laakiin habeenkii afraad markii la soo gaaray abbaaro 10 ama 4 saac habeenimo wixii ka dambeeyo jawigu gebi ahaanba uu isbedeli jiray dhismahana wax marka uu noqon jiray in dad ay ka sharqamayaan cod dumar inaan maqlo caruur qof waayeel ah haddii dhismaha aan ku dhaqdhaqaaqana wax indhahaygu maysan soo qabanin muddo oo sidaasiiti aan ku sugnaa ilaa ugu dambeyn aan arkay wax indhahayga iga yaabiya oo dhismahana igu qasbi inaan shaqadii waardiinimada kaga tago iyo halkaasiiti kula kulmay basadan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa intaas u gudgeli muuqaalka marka waxaan ku xusuusinaa in muuqaalkan inta alle garasiin share gareso haddii ka mid yihiin baaweynta nagu xirnaa nagu soo biirto wadkumaasita waqti ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aan gudagalno muuqaalkeena maanta qisadan waxay ka dhacday mid ka mid ah tuulooyinka dalka City Masar waxaana ay qosaysaa nin lagu magacaabo Xaaji Ramadaan waxa uu la noolaay xaaskiisa iyo hooyadiis wuxuu iska ahaa nin beeraley ah oo beeraha iyo waxa City iska fasha dadii u shaqeynayay waliyoomkiisa iyo waxyaabaha marka uu ka soo helo beeraha City uu falana waxa uu ku qoodin jiray reerkiisa hooyadiis wax marka iska qabtay xanuun sidoo kalena xaaskiisa waa iska xanuunsaneed sanooyinkii ugu horeeyana xaaskiisa iyo isaga wax ubada Ilaahay muusan siinin laakiin qadarku ay ku qanacsanayeen Xaaji Ramadaan iyo xaaskiisa in nolosha marka ay maadaama ay guursadeen ubad aysan helin Ilaahay iyo bari jireen qanaacana way ku qabeen nolosha wax ay haystaan dad iska faraxsan ay ahaayeen hooyadiis waa ay geeriyootay 3 sano kadib markii guurkiisu marka uu dhacay isaga iyo xaaskiisa bisa isku soo haray waxaana dhacday marka in adeerkiis xilliga City marka uu siiyo dhul yar ee beer marka City uu ku abuurto dalagyadii waxyaabaha uga soo baxana reerkiisa ugu qoodiyo Xaaji Ramadaan ilaa in muddo ah isaga iyo xaaskiisa iyo isla noolaay noloshoodu sida City marka iskaga socotay xaaskiisa markii dambe waxa ay yeelatay Xaaji Ramadaan uur waxaana dhacdayba uurka City in ay xilligii foosha ee ku umul raacato gabariyay u dhashay Xaaji Ramadaan xilligaas maadaama xanuun uu dareemay dadkii tuuladana marka ay xoogaa noqotay in arrinka xoogaa yar xanuun uu ku noqdo kale dhacday in baaritaan xilliga City lagu sameeyay Xaaji Ramadaan xaaskiisa waxaana la ogaadaba in wadnaheeda daciif uu ahaa xilligii fooshana jirkeeda marka awoodihii ka dhaxdhacay intay xamili kari weysay yaa wadnaheeda sida City marka shaqadii ku gabay Xaaji Ramadaan xaaskiisana in wadnaha ay u geeriyootay markii ay geeriyootay ka bacdi baaritaan lagu sameeyay lagu ogaaday Xaaji Ramadaan xilligaas iskuma keeni karin xoogaa hawsha oo in gabadhiisana uu xanaaneeyo sidoo kalena beeraha uu ka soo shaqeysto noloshiisa sida City marka uu ku sii wato marar uu isdhahay waa ay jirtay bal ka waran haddii xaas kale aad guursato si gabadha marka ay kugu xanaaneyso adigana aad dibadda kaga soo shaqeyso laakiin Xaaji Ramadaan xilliga City waxyaabaha uu isweydiiyay waxa ay noqotayba in uu isdhaho bal gabadhan qofka sida hooyadeed u dareemi karo ka badan yaa waaye eedo in eedooyinka uu waxyaabo markaa kama maqlay in dhibaatooyin lagala kulmo qofna ilmo uusan dhalin uusan sida hooyadii uusan u xanaaneyn karin ilmaha City waxa markaa dhacday in Xaaji Ramadaan uu ka booday xilliga City inuu isdhahay suurtagal ma ahan in gabadheeda aan eedo gacantiidan u geliyo nolosheeda ay baaba'do waxa markaa uu go'aansaday uu dhahay dhib walba waxa igu qaadatee aniga yaa sabraayo aniga yaa markaa gabadheeda korsanayo wax waliba markaa City ugu qaadato nolosheeda inaan u hibeeyo waaye oo mustaqbalkeeda markaa aan dhiso muddo 7 sano ah iyo sida City markaa ku sugnaa gabadhii xoogaa waa ay soo kortay oo waa ay weynaatay xilligaas yaa wax dhacday gabadha abtigeed in Xaaji Ramadaan xilliga City uu ku dhaho niyow gabadha xilligaaniiti waa ay soo weynaanaysaa waa xilli waxbarasho xilligaaniiti ay soo gelayso mar waliba oo gabadhaada ay sii weynaato oo nolosheeda hore ay u sii socotana waxa ugu badan doono culeyska oo qarashaadkeeda nolosha iyo waxbarashada si waxbarashada markaa ugu darnaato culeyska ugu badan aad dareemi doonto culeysaad badan yaad wajihi doontaa beerahan iyo waxaan aad falaysan Xaaji Ramadaan oo suurtagal ma noqon karto in gabadhaada mustaqbalkeeda uu ku dhismo uu ka feeyo waxa aad samaysaa in nolosha isbedel aad ka samayso waxaan hadda adiga aad samaynayso aad ku shaqaynayso in beer aad falato suurtagal ma noqon karto in gabadhaada mustaqbalkeeda ay dhisi karaan wax kale ee nolosha isku day xilligaas Xaaji Ramadaan hadalkaasi siiro u taabtay laakiin waxa dhacday in marka haddana
tala ay ku cakirantahay xaaji ramadaan uma fududaan karin in tuuladiisa uu ka dhaqaaqo ama dhaqdhaqaaq kale oo nolosha uu ku nool yahay ee beeralinimada ah uu iska bedelo si degdeg ah suurtagal umaysan noqon karin maalin maalmaha ka mid ah yaa wax dhacday isagoo gabadhiisa xilligaas la jooga xaaji ramadaan yaa waxa uu ku dhahay gabadhaydii xaaji cishaa mustaqbalka markaa weynaatay inaad noqoto gabadhiisa si halaalelaya waxay ku dhahday aabo aniga waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar hadalkaas ee weyn in gabadhiisa dhakhtarad ay doonayso inay noqoto mustaqbalka xaaji ramadaan qalbigiisu waa uu taabtay waxaana markaa uu isdhahay allele inaan fadhiga ka kaco waaye gabadhaydana riyadaniiti ay rajaynayso waa in markaa aan u rumeeyo dadaal walbana markaasiiti aan u bixiyo sidii markaa ay noqotaba xaaji ramadaan mar kale oo ay wada kulmeen gabadhiisa abtigeed yaa waxa dhacday in abtigii markaasiiti uu ku dhaho haye maxaa markaasiiti qorsheynaysaa oo dadaal markaa waxay aan ku faray maxaa ka tala kaaga soo baxay oo kale xaaji ramadaan xilligaasiiti waxa uu ku jawaabo wuxuu ku dhahay niyow aniga gabadhiida cid aan kaga tago haddii maanta magaalka aan u shaqo doono lahay xitaa ma jirto aan isleeyahay markaa hadda cid kale aad kaga tegi kartaa waad og tahay aniga walaalo ilama dhalanin xaaji ramadaan dhahay gabdhaada ila dhasheen oo geyn lahaa ilama dhalanin walaalo sidoo kale hooyana waa iiga geeriyootay in gabadhayda keligii aan korsado keligii aan ku ahay midii xanuunjinaysa waayo kama tegi karo waa nolosha xoogaa si yar u adag tahay abtiga xilligaasiit waxaa ku dhahay gabadha aniga yaa kaa haynaayo ee waxa aad samaysaa isku day inaad gabadhaada u shaqo tagto si mustaqbalkeeda aad u dhisto lacagaha ay hadhow waxbarashada ugu baahan doontana aad ugu sii diyaariso xaaji ramadaan xoogaha hadalkaasiiti rajayuu geliyey in gabadha abtigeed uu leeyahay gabadha anaan kaa haynaaye usoo shaqayso jaanisu xilligaasiiti uu arkay xilligaas waa uu fikirayoo waxa markaa jirtay in dadka masar ay aad u danayn jireen xilliyadii sagaashameedii ahayd in ay khaliijka inta la tago laga soo shaqaysto xaaji ramadaan waa uu soo baxay magaaladii uu xilligaasiiti soo aaday shirkado oo dadka markaa usoo saaro deganaasho oo fiisooyinkana markaa u xarxiyo shaqooyinkana codsiyada u gudbiyo iyo markaa dhowr shirkadood uu la ku kulmay wadamo kala duduwana markaasiiti loo kala sheegay oo khaliijka ah qiimo kala duduwana markaa waa loo sheegay xaaji ramadaan lacag badan xataa xilligaasiiti ma haysto laakiin rajo unbaa riixaysoo ah in gabadhiisa uu u halgamo in mustaqbalkeeda kaalin uu kaga soo baxo nolosheeda uu riyadeedii markaasiiti uu dhiso waxaa dhacday in wadanka ugu fudud ee xilligaasiiti qiimo yar uu ku tegi karo waxa markaa loo sheegay xaaji ramadaan inay tahay wadankaasiiti Kuwait waxaana la dhahay 1200 oo diinaar ayaa markaa loo baahan yahay inaad keento 1200 oo diinaar xilligaasiiti xaaji ramadaan aad iyo ugu cuslaatay lacagta siiti muusan heenin waa uu soo baxay tuuladiisii dib markaasiiti ugu soo laabtay gabadhii abtigeedii uu la kulmay waxa uu ku dhahay waan soo baayacay shirkado kala duwan qiimaha markaa khaliijka ay igu geyn karaan oo fiisada inta igu xareeyaan deganaasho ay igu samayn karaan shaqo ayna igu xareyn karaan oo kale qiimaha ugu yar ee markaa xilligaasiiti xaaji ramadaan gabadh abtigeed uu sheegay in markaa uu dhahay wadankaasiiti Kuwait aan soo helay 1200 oo diinaar yaa la idhahay anigana markaa waa ogtay dhahay nolosheeda lacagta siiti ma heli karo xaaji ramadaan gabadha abtigeeda markaa waxa uu ku dhahay ha ka welwelin xaaji ramadaan oo waxa markaa siiti aan sameynaya dadka tuulada intaan dhex galo in lacagta siiti lagu soo aruuriyo abtigii waa u baxay tuuladii u dhex galay oo dadkii markaa siiti lacag u weydiiyey oo amaaha madeen uga soo qaaday lacagtii ada xaaji ramadaan waa loo soo aruuriyay 1200 oo diinaar oo soo baxay lacagta siiti markaa waa uu isku soo furdaamiyay oo safarkiisii ku soo galay Kuwait markaa siiti yimaaday xilliga siiti hadal abtiga uu ku dhiirigeliyay xaaji ramadaan yaa markaa ay ahayd inuu markaa dhahay niyahow gabadhan abtigeedan ahay anaa kuu haynaayo ha ka welwelid nolosheeda waxay cunto waxay cabtay meel ay seexato waxa aad samaysaa hadda xooga aad saartaa lacagta siiti lagugu diray ee amaahda ah inay iska soo celiso sidoo kalena gabadhaada maadaama haddan waxbarasho ay bilaabayso in markaa aad xilliga waxbarashada ay joogto in aad lacageeda waxbarashadana aad u soo dirsato xaaji ramadaan maadaama meel markaasiiti uu ka shaqeynayo shaqo fiican uu ka qaban karo lacagna uu helayo uu tagay oo ka roon tuuladii markaasiiti uu ku noolay hadalkaasiiti xoogaa laabtii uu qaboojiyey waxa uu dhahay oo diyaar waan dadaalayaa xilligaasiiti waxa uu la degay oo guri markaasiiti ay isla wadaagayeen nin kale oo isagana Masri ahay oo markaa waardiinimo xilligaasiiti ku shaqaysanayay xaaji ramadaan waxa markaasiiti uu ninkii uu la degay uu markaa ku dhahay waxaan rabaa in shaqo halkaaniiti wanaagsan adiga la baarbaarto oo wixii doonto markaa ay ahaato kale
ninka xilligaas intii guriga isla degan Xaaji Ramadaan waxa markaa ku raani waardinimaan ku shaqeeyaa wuxuu dhahay waardinimada waxaad ii soo raadi waan ogolahay okay waayo dhahay bal waa fiirinayna in markaas intii shaqooyin aan arko kuweyda aan ka arko oo kula dadaalaya ayuu dhahay Xaaji Ramadaan noloshii bilowga maadaama in uu iskafeeyo loo baahan yahay oo noloshii markaa uu la qabsado waxa bilowga uu ka bilaabay kuweyd markii uu tagay in gawaarida uu dhaqo shaqooyinka xoog u baahan oo idil uu ka shaqeyn jiray shaqo walba ka soo horbaxdo muusan diidi jirin si uun lacag uu kaga helo noloshiisu isku furdaamiyo haddii magaalada uu la qabsado shaqo u qalmi karto mushaar fiican uu ka heli karo uu helana uu ku sii sugto waxa markaas dhacday in xilligaas shaqo waardinimo markaas loo soo helo waa uu ku farxay xilligaas shaqada waardinimada shaqo joogto ay ahayd mushaar fiican uu ka helayay shaqadii uu markaas bilaabay Xaaji Ramadaan waxa markaas uu sameyn jiray in lacagaha uu shaqeeyo qaarna kayd gabadhiisa uu kaga dhigo oo hadhow jaamacadda iyo markaa waxbarashadeeda soo weynaato dugsiga sare soo gaarto kale uu ku kafaalo qaado qayb waa uu keenin jiray qaybna amahdii iskaga celinayay qaybna noloshiisa uu markaas ka dhigan jiray oo uu soo bixi jiray oo xilliyada markaas fasaxa uu helo Masar uu imaan jiray tuuladiisa gabadhiisa waqti markaas la qaadan jiray oo maadaama xogaa waqti badan oo sanadka uu ka maqnaanayo oo ku farxi jiray gabadhiin markaa uu u imaado aragti ahaana waqti markaas uu la qaato muddo iyo sidaas markaa ku sugnaa shaqada waardinimada waxa markaa uu ka shaqeynayay muddo 12 sano ayuu markaas ka shaqeynayay sidaas markaa noloshiisa iska ahayd oo waxa markaas waqtiyada ugu farxadda badnaa xitaa ee waardinimada shaqada uu ku jiray 12 sano ee la dhihi karo waxa markaa kamid ah in xilli uu la kulmay ay ahayd gabadhiisa markay dugsiga sare ay ka baxday markas fiican ay keentay markaskana suurtagal uu ka dhigi karay in gabadhiisa markaa loo ogolaado kulliyadda caafimaadka inay gasho xilligaas aad iyo markaas ugu farxay waxa markaa dhacda laakiin arin yara xogaa siir u xanuunjisay Xaaji Ramadaan qoladii uu u shaqeynayay ee guriga waardiyaha uu kaga ahaa dhismihii waa ay gateen qolo cusub iyo markaas ka gateen qoladii cusubna waxa markaa ay sameeyeen oo ku dhaheen Xaaji Ramadaan waa maasan tahay inta markaa waardinimada gurigan ka shaqeynaysay suurtagal ma ku sii noqon karto haatan wixii ka dambeeyay halkaanida ka sii shaqeyso annaga dhismahaniti waan burburinayna oo dhismo kale oo cusub yaa rabnaa in halkaanida ka dhisno hal Xaaji Ramadaan qortaada waa kaasa shaqo kale kuma sii hayno Xaaji Ramadaan in shaqadii muddo 12 sano uu ka shaqeynayay ee waardinimada ay ka soo istaagto xilligaasna gabadhiisa in jaamacad ay aadayso dugsiga sare ay soo dhameysay si markaas u damqaysay in qarash badan uusan u heynino intii uu keediyana muusan hubin in gabadhiisa ay suurtagal ka dhigi karto in jaamacad ay ku aado xogaa yara caqabadiisu markaas u dareemay way yara cabsanaya Xaaji Ramadaan waxa dhacday in dadkii uu yaqaanay xilligaas asxaabta iyo dadkii qaraabada la ahaayay kore ee kuweyd markaas joogay in xilligaas shaqo uu weydiiyay dadka waxa markaa dhacday in mid ka mid asxaabta xilligaas uu ku dhahay waxa markaas aan hayaa guri looga baahan yahay waardiyanimo ismiyaasha magaalada marka la fiiriyo kooni iyo xigaa u dhahay isaga guriga u dambeeyay ah oo kale xogaa yar cidlana waaye dushan sana ah gurigaas oo iska xiran yahay oo ismiisa lama dhameystirin waxa markaas la isku qabsadan waxa ay qolyaha dhisayay iyo qofka guriga iska leh yaa qandaraaskii markii la guda galay qarashaadkii isku fahmi waayay maxkamadii arintoodu gaartay maxkamadan waxa markaa ay go'aamisay in inta kiiskaneeti laga dhameynayo in gurigaasi dhismihiisa uu istaago waxbana aan lagu dari karin waxna aan laga qaadi karin si halaaleel Xaaji Ramadaan xilligaas qofka u keenay shaqada iyo waxa ku dhahay diyaar ahay oo galaya shaqada markaas ay igay durbaba okay Xaaji Ramadaan waa la kaxeeyay gurigii yaa markaas qofkii furaha hayay milkiyadda yaa markaa loo geeyay waxa markaa Xaaji Ramadaan xilligaas qofka guriga mas'uuliyadiisa hayay uu u sheegay uu ku dhahay soo dhawow guriganiita waxa uu dhahay waa 7 dabaq ismiya markaas uu dhimano sidaad u jeedaba alaabta dhismaha ku socotay wixii markaas lagu kala waday dhismaha in lagu dhameeyana loogu talagalay baqaar hoose oo dabaqa u hooseeya la tuso la dhaxal kareetiyo alaabtan ku xariisan yihiin guriganiita yaa ilaalinaysa ha la dhahay shaqo joogto way mushaar fiicanna waa loo sheegay xilligaas Xaaji Ramadaan aad uu ugu farxay in shaqo kale markaa uu dib u helay waxay uga dhigneed oo kale in nolol ay dib ugu bilaabatay oo kale maadaama shaqadii hore intay ka istaagtay hoogaa yar xanuun oo yar cabsi qalqal dareemay oo gabadhiisa xaggeeda ah haddana shaqo kale inuu helay
aad ugu farxay xaaji ramadaan waxa markaasiti uu dhahay okay diyaar ahay waxa markaasiti la dhahay qaybta hoose iyo waxa marka xilligaasiti laga tusay sidoo kale qol uu dego oo la dhahay isla dabaqaaniiti hoose qolkaasiti adiga iska leh la dhahay degeysid waqaarkana waa kanaawo ka soo horjeeda isla dhismaha hoos kugula yaala alaabtaaniiti ilaalinaysa guriga inta kore wax saasoo alaab badan ma jirtaa la dhahay oo ilaalin fara badan kaaga ma baahnaba qaybtan hoose laakiin waa in markaa aad ilaalisaa xilligaas waxa kaloo lasoo kala tusay 7 dabaq oo gurigana markaa waa lasoo tusay xajirmadaan dabaqa u sareeya waxa markaa xilligaasiti uu ku arkay qol halka city ku yaala sidoo kale waxa markaa uu ka codsaday ninka guriga markaa mas'uuliyadda milkiyadda hay intii fura uusan ku wareejin xajirmadan waxa uu codsaday uu dhahay waxa aan rabaa in xoogaha qolkaas hoose aan ka soo wareegsado qolkan kore uu soo wareegsado xajirmadan dhahay waayo wax markaa xilligaas xajirmadan uu u sheegay ninka milkiyadda guriga hay uu ku dhahay asxaab ya isoo booqanayso dhahay oo ii imaanayso qolka city ciriiri waayo qolkan kore waasaca qolkan itiyaa raba inaan dego xajirabadan waxa markaa xilligaas lagu dhahay ama kor deg ama hoos deg adiga go'aankeeda iska leh ani waxaan ka rabaa la dhahay in alaabta city dhismaha qaybta hoose taala ee baqaarka ina ilaaliso hay waayo dhaana ilaalinayo markii uu la wareegay dhismaha guriga furihiisa markaa lagu wareejiyay ee habeenkii koowaad uu ku hoyday habeenkii wada caadi iska ahayd habeenkii labaad wax waliba caadi u muuqdeen habeenkii saddexaad sidoo kale habeenkii afaraad jawi kale markaa la kulmay habeenkaas waxa dhacday in 10kii habeenimo ama 4 saac habeenimo wixii ka dambeeyay in xaj ramadaan dhismaha uu ka maqlay cod sidoo kalena marka codka city waxa uu iskugu jiray haweeney qaylinaysa aruur iska dhiilaysa qof odaya uu hadlaayo oo soo baxay xaj ramadaan meelihii codadka marka uu ka iimaanayo isdhahay dabaqyadii uu ku soo wareegay waxa ma uusan arkin codkaas habeenkaas city sidaas uu ku hoyday ilaa muddo sidaas city marka haddana codadkii uu sii maqlayay habeen walba waa uu maqlaa habeen walba sida city codadku uu soo laabtaan oo uu soo baxaa meelaha uu fiiriyaa uu la hadlaa qof u jawaabaya marka city malahan sida city marka ilaa ay muddo 2 bilood ah sida city marka noloshiisa iska ahayd codadka city waa uu maqlaa noloshiisa xogaa marka waa ay la qabsatay oo sina marka xogaa uga cabsan jiray oo kale dhacday habeenada kamid ah in isagoo marka asxaabtiisii ka yimid ee guriga marka city soo galay dabaqa korona soo aaday ee qolkiisa in xilliga city uu ku hor arkay mukulaal ka yaranahay xilliga city ay waxa ahayd mukulaal yaro weyno ilaa ay yariisa lafac albaabka qolkiisa iyo marka hor taagneed waxaana marka ay sameeynaysa albaabka iyo lugta marka ku xoqaysay yaawna way lahayd way dhawaaqaysay waxa marka dhacday in xaaji ramadaan xilliga city si yaro uu baqay waayo mukulaal uu arki jiray laakiin mukulaal aan yara baqaynin oo madow ah si toosna marka u soo fiirinayso cod mukulaalna leh yariisana xoogaha la faco mukulaalana caadiga ka weyn albaabka qolkiisa hor taagan waxa marka dhacday in xaaji ramadaan xilliga city uu naxay aad iyo marka city uu naxay waa uu cararay xitaa oo ismaantu marka ka daadegtay uu banaanka xilliga city u baxay laakiin haddana waxa marka uu isweydiiyo isdhahay waniyow ismaha ninkii ilaalinaya waaba adiga banaanka marka uu baxo isleeyahay hadda maxaa banaanka ugu soo carartay maxaa dadka marka u sheegaysa xataa haddii marka aad tiraahdo intaad qayliso waardiyaasha kale asxaabtaada ee guryaha kale ee xoogaa kuu jiro kale dad u tagto waxa u sheegaysaa in marka aad dhaxdo marka uu isdhaniyo geesinimo lagaga baahaya miyiganimadada xilligaas waxa marka uu soo qaatay uliyuu soo qaatay waxa marka uu ku soo laabtay dabaqii sare ee qolkiisa ayuu ku soo laabtay waa uu soo socday kulaashiyo markaas ay waxa uu sameeyay in meeshii xogaa uu ka buriyo kulaasha mid yara baqaysa ma ahano dhismaha haddii uu buriyo xitaa aad kaga ma fogaanayso waxa dhacday in xilligaas ay haddana uu yara intuu gadaal u degay uu yara baqay waxa dhacday in haddana marka uu isweydiiyo maxay kulaashan albaabka qolkaaga ay u hortaagan tahay bal daaqada meel ku aadan oo xoogaha ah oo ishiisa qabo kartay qolkiisa waxa markaas ay gudaha ku dhex jiro uu ka arki karo yusas u fiiriyay waxa gudaha marka uu ka arkay qof xilligaas ay qolkiisa ku dhex dhaqaaqay marka uu isdhahay qolkaaga waxa laga yaabaa in haddana tuugu ku jiro haddana waxa uu isdhahay maxay kulaashan albaabka hor qabanaya hadii tuuga qolka markaas ay ku jiro fura ayuu soo qaatay geesinimo iska soo baaray waxa dhacday in albaabka qolka intuu soo furay uu ushii markaas uu haystana uu isxajiyay birtii uu isdhahay la dhacday marka qolka uu qofka soo baxo waxa dhacday albaabka markuu soo furay in bisad yar qolka ay ka soo carartay oo ay ka soo baxday qolkan uu sii fiiriyay wax kale kumuusan arkin xilligaas uu isdijiyay oo xoogaa cabsidii badneed way ka yaraatay waxa marka uu isdhahay kulaashi weyneed albaabka qolka ay ku hormeereysanaysay aad ka yara baqatay oo marka
ay u hortaagneyd bisadan yar ee gudaha markaa ku jirto ee qolkaya kaga xayirneed oo sidaasaytii markaa ugu wareeganeysay waxaa dhacday markaa in sidaasaytii markaa baqdiintaasaytii uu isagu jiro xaaji ramadaan codadkii marar kala duwan waa uu maqlaa sidaasaytii markaa ugu soo laalaabtaan habeenada ka mid ah yaa markaa waxaa dhacday in uu isagoo markaa quraan akhrisanayo in codadkii haddana sidii markaasaytii u maqlay oo codad dhawaaq fara badan bixinayo kale xilligaasaytii uu sii maqlay qolkiisa markaasaytii intuu bannaanka waxyar kaga soo baxay yuu hareeraha fiiriyey mukulaashiyuu arkay haddana oo meel halkaa isla dabaqii markaa kula sugan oo habeen kale haddana waa uu naxay albaabka yuu qolkiisa dhexda kasoo xirtay mukulaashi muusan burin habeenkaas uu ka yara baqay oo isdhahay mukulaashan weyn haddana dhismaha kusoo laalaabanayso maxay tahay haddana kusoo fiirinayso aanan kaa baqaynin qolkiisiyuu dhexda ka xirtay cod sare iyo xilligaasaytii waxa uu bilaabay in quraanna markaasaytii ku akhriyo isagoo quraanka akhrinaya ee waxaa dhacday in albaabka xoog loo soo gargaraacay sidii in la jebinayo albaabka oo kale durbadiiba albaabku furay hareeraha yuu fiiriyey markaasaytii uu isdhahay albaabkiyaa soo gargaraacay isagoo baqanayo hareeraha yuu fiiriyey wax kale ma joogaanoo bisadii aan markaa ka ahayn albaabka wax oo qof albaabka usoo gargaraacay oo muuqanaya muusan jirin oo uu soo laabtay quraankiisiyo cod dheer haddana kusii akhriyey markan kale waxaa haddana markaasaytii uu maqlay codad kala duwan oo dhismaha markaa ka dhawaaqayo codadkan ee habeenkan quraanka uu akhrinayo uu maqlaayo waa codad dheeroo ka dheer habeenadii hore codadkii markaasaytii uu maqli jiray habeenkaas habeen waxa ay u ahayd xaaji ramadaan baqdin markaasaytii uu ku sugan yahay wax markaa xilligaasaytii uu go'aansadaba in dhismaha dabaqa kore qolka ku yaalla uu kasoo guuro habeenkaas wixii ka dambeeyey hoos xilligaasaytii uu soo degto oo qolkiisii hore ee koodii hore la dhaha qolkaanaad degaysaa in qolkaasaytii markaa uu yimaado uu isdhaho qolkaagaan joog alaabtaana oo ku muuqataa waardiyey oo baqdiintiya kor ban markaasaytii uu ku dareemay gebiyahaan buu kaga soo guuraba waxaa dhacday in bisadii haddana habeen kale uu ku arkay dhismaha qaybta hoose isagoo markaa joogo yuu arkay waxaa markaa dhacday in xoogaa baqdinna si markaasaytii uu dareemay habeenkaas xoogaa isagoo baqdinna marka ay ku jirto yuu wax marka uu la qabsaday oo sina markaa xoogaa sidhaa markaa dii mukulaashan ay kugu soo laalaabatay codadkaneetin askama maqlayso baqdin fara badan oo saasa markaa ma isan gelin waxaa dhacday in habeenada ka mid ah uu subaxdii markaa intuu baxay uu habeenkii markaa uu yara yimid fiid hore oo shaqo iyo maalinkaasi kusoo dahay habeenkaas codka wax markaa inta badan uu maqli jiray 4 saac ama 10 habeenimo wixii ka dambeeyay codka maqli jiray laakiin habeenkaas fiid hore iyo codadkii shanqarta gurigiinu ka dhex maqla markaasaytii ay bilaabataba oo uu yara nahay say wax u jiraan oo kale waxaa dhacday in toosh intuu soo qaato oo hareeraha markaasaytii uu ku eegay oo cod markaasaytii caruur oo kale iyo cod dumar iyo waxbuu ma maqlaayay cid umaysan jawaabin waxaa dhacday in sidoo kalena markaa ilaa dabaqa kor xilligaasaytii markaa uu tegey suudaadagiisa yaa waxa markaasaytii uu arkay haddana qof hoos oo jaranjarta markaa ka daadeganaya isaga kor markuu ka soo deganayay yuu meesha markaa ka arkay hoos cod dumar maadaamana uu ma maqlaayay xilligaasaytii waxa markaa uu isdhahay ama qofkaanayti dumarka ee sii daadegaysa hooska arkayso codkaanayti aa maqlaysa uu yahay oo kale waa uu ka daba qayliyey oo waa uu xooga kusoo degtay jaranjarooyinka ismihii hoose markuu yimaaday waxba gebi ahaanba markaa ma jiraan oo iska hoyday xoogaa isagoo markaa baqdin yara ku jirto isagoo la yaaban oo isleeyahay waxaan sidee markaasaytii wax u jiraan shaqadan haddii uu ka tagana shaqo kale ma heli karo laakiin muddo 2 bilood ah ee dhismaanayti uu waardiyanaya cidlada xaaji ramadaan cabsiyo markaasaytii habeen walba ku hoydaa codad inuu maqlaayo shanqaro inuu maqlaayo in albaabkii lagu soo gargaraacay dabaqa kore uu deganay naxdintaas hoos inay usoo rartay hoos inay codadkii ka daba imaanayo meel walba dhismaya cod inuu ka maqlaayo murugyo xoogaa shaqadaanayti ku dareemay xilligaas waxaa dhacday in dadkii asxaabtii uu gargaranayay ee kuweyt xilligaasaytii kula sugnaayo uu ku dhaho shaqo kala bal hal ii soo raadiyo ani shaqadaanayti waa ku dhibtooday xaaji ramadaan xilligaasaytii waxaa lagu dhahay xilligan kuweyt dad badan oo masaariya soo galayo oo shaqooyin kala qabanayo haddii markaa shaqadaas aa kasoo tagto waxaa lagu dhahay xaaji ramadaan suurtagal ba noqon karto shaqo kale oo degdega inaa hesho laga yaabaa shaqooyin alyooma inaa qabato maalin aa shaqayso dhowr maalin xaafadda iska joogto
xaaji ramadaan waa uu fikirayo hadalkaasayta wax markaa uu ku noqotay xoogaa yara culays laakiin waxa markaa la dhahay waan kula raadinaynaa haddii oo shaqo aan aragno waardiinimo kaloo meel kale ah oo kuusoo sheegaynaa waxa markaasayta ay noqotay in shaqadiisa marka uu ku sugnaado gabadhiisa jaamacaddii bilowday oo kuliyaddii markaa caafimaadka dhakhtarnimada iyo diyaarinaysay riyada gabadhiisa uu rumaynayo xaaji ramadaan wax weliba iyo markaasayta uu samaynaya dhibaatooyinka badan oo habeen walba codadkanayta uu maqlaayo naxtiinta baqdinta ku beeray waxa marka uu dhex joogay meelna markaasayta uusan kaga dhaqaaqaynin waa gabadhiisa darteed in gabadhiisa uu doonayo riyadeedii inuu rumeeyo maalinna uu arko iyadoo dhakhtarada markaa in nolosha markaa uu arko waa uu baxay oo habeen yaa markaa waxa dhacday in asxaabtiisa mar intuu aaday uu soo laabtay dhismaha guriga markii uu soo galay ruux dhar cadaan watay yaa waxa uu ka arkay inuu taagan yahay daaqad ku aadan qolku yaala dabaqa afraad oo uu yaabay oo xilligaasayt waxa uu dhahay sidee wuxuu jiraan qofkaniiti muxuu halkaniiti ka qabanaya dabaqaniiti waa cidlo laguma talagelin halkaniiti inay dad joogaan oo dabaqaniiti dhismaa ku socdo anaa waardiye ka ah sidee wuxuu jiraan oo kale wuxuu dhahay tuugyaa soo galay oo qofkaniiti waa qof doonaya in halkaniiti wax ka qaato tuug ah waa in markaa gacanta aad ku dhigtaa waxa uu soo qaatay shay markaasayta uu islahaa oo ul ama biro kale ah oo la dhac uu islahaa haddii markaa uu qofkaasiiti aad aragto isla markii oo uu soo cararay jarjartii uu soo koray isagoo soo gaaray dabaqii afaraad waxaana si toos u abaaray qolkii uu ku tuhmayay in daaqadiisa qofkaasiita dharka cad wato uu taagan yahay albaabkii uu ka galay waxaana albaabka durbadiiba qolka uu ka galay uu arkay bisadii yareed ee qolka habeenkii markaa dabaqa sare uu deganay uu albaabku furay ka soo baxday iyo isla meeshii markaasayta ku arkay oo bisad caday markaasayta iska ahayd qofkaas meesha markaa taaganna wax markaasayta uu isdhahay qofaa meesha taaganoo ugumuusan teginba waa uu yara xanaaqay xoogaa markaasayta waxa uu isdhahay xaaji ramadaan bisadan ma tuugkuula ekaatay oo kale bisadii meeshii markaasayta ka buriyey waxa dhacday in xaaji ramadaan markii waqtigaasaytii ka dambeeyey weli codad in markaasayta uu siima maqlaayay habeenkaas wax markaasayta uu sameeyey in dabaqan dhan dabaqyadan intuu ku wareegsado balbaaritaan markaasayta uu ka sameeyo bisadii xilligaasaytii ku arkay bisadii weyneed ee marka uu arkayay dabaqa sare xilligaasaytii ku arkay wax markaasayta uu sameeyey in dhagax intuu qabtay uu isagoo bismillaah dhahayo in bisadii markaasayta uu ku tuuray bisadii waxa markaasaytii ay kaga dhacday indhaha bartankooda markaa sujuudda beelku aadan iyo dhagaxi markaasaytii kaga dhacay bisadii waa ay carartay xaaji ramadaan maadaama dhismayaashii uu soo fiiriyo waxba uusan ku arkin hoosii uu soo daadegtay waxa markaa dhismaha qaybta hoose markuu yimid uu arkay bisadii oo qolkiisa hor jiifta waa uu yaabay waxa uu isdhahay bisadan sootaad kor ka soo burisay waxay qolkaaga la hor jiifta maxay halkaaniiti ka qabanaysaa ushii uu watay iyo xilligaasaytii isagoo aayar usoo dhaqaaqay yaa waxa uu ku taabtay bisadii oo uu ku rogrogay ma dhaqaaqaysa bisadda waxaan xilligaasaytii u xaqiiqsaday in bisadii ay geeriyootay waxaana bisadda xilligaasaytii uu tuhmi kari in ay u geeriyootay dhagaxii uu ku dhuftay kor markuu kasoo burinayay meydkeedu waa u qaaday waxaana markaa uu iskaga daray goobta qashinka oo iska soo laabtay dhismaha qaybtiisii hooseyuu kusoo laabtay waxa markaasaytii uu isagoo qaybta hoose markaa kusoo laabto iska fadhiyo uu maqlay cod xilligaasaytii caruur iyo maqlay dhismaha markaa ka dhex maqlay iyo cod haweeney oo qaylinaysa xilligaasaytii oo uu soo baxay tooshkiisiyuu soo qaatay isagoo markaa dhahayo yaa waaye maxaa markaasaytii dhismaha ka dhex qabanaysaan yaa waxa dhacday in ilaa iyo dhismaha xoogaa kor markaasaytii uu soo raacay looma jawaabayo laakiin codad wuu ma maqlayo dhismaha isagoo dhowr xoogaa dabaqa kor u soo koray ilaa iyo dhowr jaranjaro yaa waxa dhacday in habeenkaasaytii uu ku hor yimaado qof waayeel ah qamiis wato sidoo kalena ul xilligaasaytii ku socda ku takobsanaya xaaji ramadaan markii uu arkay dhismaha qof ka soo degayo isaga maadaama uu sii korayay yaa wax markaasaytii uu ku dhahay xaaji maxaa markaasaytii dhismahanaytii kusoo dhexgeliyey qofkii waayeelka ah ayuu xaaji ramadaan dhahayaa looma jawaabin xaaji ramadaan qofkan waayeelka ee qamiiska wato ushiisii uu iska soo watay oo uu soo daadegay xaaji ramadaan wuu kasii dabaqeelinaya odayga maxaa dhismaha xilligaanayti ka qabanaysaa uu maxaa meeshaanayti ku keenay anaa waardiye ka ah oo kale ah looma jawaabo odaygii markaasaytii waa uu degtay xaaji ramadaan maadaama daqiiqadiina meeshiisa uu ku hakaday odaygii maadaama uu ka yara mirqay oo jaranjarta uu ku daadegtay waxaa markaa dhacday in xaaji ramadaan intuu soo ortay uu hoos soo daadegtay dhismihii hoose markii uu yimaaday maba joogaba ninkii albaabka gurigiiyu xilligaasaytii fiiriyey albaabku waa u xiran yahay dhismaha guriga daashka waxaa ku hareeraysan derbi dheer oo suurtagal ma noqon karo in xilligaasaytii qof uu ka boodi karo xitaa xaaji ramadaan cabsiya xilligaasaytii ku beertay waa uu cararay oo dhismaha waa uu ka cararay habeenkaasaytii mid kale oo asxaabtiisa oo waardiye guri kale ka ah ayuu la hoyday
waxaana markaasaytii u go'aansaday xaaji ramadaan maadaama xilliyadii hore codad uma maqlayo laakiin qof muuqa uu ka hor yimid haddana isla dhismaha uu ku dhex waayey cabsidii markaa waa ay ku badatay wax markaasaytii u dhahay bis waaye aniga shaqadaaniitii ma qaban karo oo shaqadaaniitii bis waaye aniga wuxuu dhahay bis waaye waa iga soo istaagtay suuliyaddii iska wareejiyey shaqadii markii uu ka tegey waxa markaa riyooyin uu arki jiray ah in markaa la eejinayo sidoo kale habeenkii riyada lagu soo weerarayo markuu soo kaco maaragtay naxtin la soo kaca ayuu arki jiray in gabadhiisi markaa ay geeriyootay wax ay ku noqotay xoogaha utun xanuun markaasaytii inuu dareemo maadaama gabadhiisa isagoo markaa uusan u xaqiijinin riyadeedii aysan gaarin in loo sheegay dhismaha kulliyadda jaamacadda ay ku sugnayd dabaqa labaad inay kasoo dhacday xaaji ramadaan waxa markaasaytii uu isdhahay xagee markaasaytii gabadhaada laga asiibayo si yaro ogaa markaasaytii u yara fikiray wax markaasaytii uu isdhahay gabadhaada ama jin soo weerareenoo maadaama aad gulaashii madoobeed aad dishay oo dhismaha aad ku dhex dishay weyneyd sidoo kalena markaa aad dhismaha qof aad ku dhex aragtay aad kaga soo qarartay in riyooyinka lagugu ceejinayo lagugu dhibaateynayo gabadhaada intaysan geeriyoonin ka hor riyooyinkaas amay ahaayeen kuwo tilmaami karayo isdhahay xaaji ramadaan in gabadhaada dhib ku soo socday oo gabadhaadii laga aarguday ugu dambayn oo la dilay jin gabadhaadii ama u dhibaateeyey sidaasaytiyo marka xaaji ramadaan uu aaminay adiga dhankaaga waxaad ku tilmaami kartaa xaaji ramadaan ma dhihi kartaa gabadhiisa waxa markay u geeriyootay sabab in jin uu soo weeraray oo jinkaasi dhibaato uu ka tirsanaya xaaji ramadaan in gabadhiisa loo dhibaateeyey macquul ma tahay xaaji ramadaan fikirkiisa ku raaci kartaa aragtidaada qaybta faallada markaasaytii noogu reeb haddii aad xiiseynayso qisooyinka sidaan oo kale ah in marka aad soo badino fadlan nagu taageer in muuqaalkaniitii aad like garayso siina share garayso si muuqaalka u faafo meel dheer uu gaaro dad badanna markaa janalka ay ugu soo xirmaan waad ku mahadsan tahay ilaa iyo halkaniitiina nala soo gaartay waqtigaaga aad ku bixisay daawashada muuqaalkan muuqaalka xigiya noo balana